الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. ولا ليال وحوي وبرنامج كيني خيرها إلى دوني يدتكو إني كفايديستان أو خيرك يوناق لغفا فيه إن شاء الله تعالى ما أنت وحينو كشكينا شيخ شيء له إن لغفا إديستو وقتها oo Umar ibn Abd Aziz wuxuu dhihi jiray habeenka iyo maalintu way ku camal falayaane anna habeenka iyo maalinta ku camal fal macnaha habeenka iyo maalintu aday kugu socdaan oo xisaabtaada ay ku jiraan oo iyagu hawshooda iyo shaqadooda iyo camalkooda way wataan oo ah in ay isdhaafaan oo habeenkiina uu soo galo arootiina ay soo gasho hadhootana sidaas umrigii uu ku tago macnaha iyagu shaqadooda way haystaane adna shaqadaada waa inaad haysataa oo waa inaad camal falataa oo waxyaala wanaagsan aad ka shaqaysaa ama waqtiga aad ka faa'iideysataa. sheekh kale ayaa wuxuu dhihi jiray adigu waxaa tahay ayaamo la isku dardaray ayaa tahay hadday qaar tagaana qaarka kale way tagayaan. tusaale ahaan qofkii wuxuu nool yahay 40 sano ama wuxuu nool yahay 30 sano ama 50 sano ayuu nool yahay 50 sano oo qofkaas nool yahay haddii 30 sano ay tagto waxa weeye 20 sano ayaa ku soo haray weeye waa 20 sano markaad joogtid waxa weeye waa tagaysaa waqtigaagii uu dhamaaday cimrigaagiina sidaas uu ku tagaya. markaana sheekhaas wuxuu inoogu boorinayaa dhamaanteen in aynu camalkeena ama waqtigeena ay ka faa'iideysano oo qof kasta oo maalintii wax khayr ah inuu sameeyo wuxuu kari karo inuu sameeyo oo khayr ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala agtiisa ugu dooda halkaas ayuu ka faa'iideeyaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaad agtiisa wax adiga kugu dooda ama camal ku marxaati kaca ay sameeysid waxa ka dhigan tahay sidii qof waqtigiisa ka soo faa'iideystay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri hatta idha jaa ahaduhum al-maut qala rabbi irji'un لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. markii laga waramay dadkii gaar lahaa ama dadkii camalada xun soo sameeyay dhamaantood waxay ku dhahayaan markuu geeridu u timaado malakumoodku markuu u yimaado oo uu isdhaho nafta ka qaad ayaa waxay dhahayaan maye Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay celi oo dib ii celi ama nafta marka laga qaado ayay dhahayaan Ilaahay oo naftii nagu soo celi oo adduunkii nagu celi aanu soo sameynay camal wanaagsan oo aanu ahayn kii aanu ka soo tagnay camal wanaagsan oo ah kii aanu ka soo tagnay ayaanu doonaa inaanu soo sameynay. markaan hadhihi daar huwa daarul amal wa qadan daarul jazaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay waa kalmo uu iska yiri hadal uu iska yiri weeye waxa macna ay ku fadhido inuu qayliyo oo qofkaas uu dhaho aniga dib halay celiyo aan camal wanaagsan soo sameeyay waxa weeye wax uu iska yiri waa qof kasta oo fursad iyo chance iska soo qasaariya oo chance muhiim ah oo iska soo lumiya oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waqti uu siiyo qof kasta hadalka uu ku hadlo oo uu isku dayo chance-kiisii hore inuu dib u saxo isagoo oo chance kale helen waxa weeye waa kelmad uu iska dhaho. marka waxa la doonayaa chance-ka ay haystid inaad ka faa'iideystid. adduunyadan chance-ku waa nicmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa nicmo Ilaahay qofka fursad uu siiyo. nicmada Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaa ku shukrinig weydid waxa weeye waxa ka mid tahay mid nicmadii Ilaahay diiday Ilaahayna wuxuu ku ciqaabayaa inuu dib daba chance-ka kugu soo celin. laakiin hadii aad ka faa'iideysatay waxa tahay mid ku shukrinaqay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fursado badan ayuu dib ku soo celinayaa. المهم waxaan wayna ogaata chance-kan iyo fursadan iyo waqtigan nicmo min Allah subhanahu wa ta'ala inay tahay maadaama ay nicmo min Allah ay tahay waxaad ogaataa hadii aad nicmadana waxa weeye waa lagu shukrinaq ayaa lagu qaabila hadaa ku qaabili weeyay shukrinaq waxa weeye waa nicmadaas waxa weeye waa diiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmadii uu ku siiyay waa ku shukrinaq weeyay markaana dib dambe inay taas kugu soo noqoneen nicmooyin kale waa laga yaabaa inay kugu soo noqdaan
haddii aad ka faa'iidaysatidna ilaahay subxaanahu watacaala oo dib kale kuu soo celiyo nicmooyin kale. laakiin taas haddii aad ka faa'iidaysan weydid waxaad turtay weeye. idaa kunta fii nicmatin farcihaa fa ina almacaasi tusiilu nicami. muxuu yidhi ninkii shaacirka ahaa, nicamtu haddii aad nicmo haysatid ilaali, maxaa yeelay macaasidu waxay fasahaadisaa nicmada qofka la siiyo ayay fasahaadisaa. hada alwaqt markaa ninkan dhimanaya wuxuu leeyahay ilaahayow waqtigii aa isiisay xumaanta iyo macaasida iyo dunuubta iyo kufriga iyo waxyaalihii ilaahay subxaanahu watacaala uuna raali ka ahayn aan ku mashquulay, waqtigaas ii soo celi ama nafta iigu soo celi, hadhowtana adduunyada aan ku noqdo aan ka faa'iidaysto waqtigii aa isiisay. muxuu doonayaa inuu ka faa'iidaysto? waqtigii ayuu doonayaa inuu ka faa'iidaysto, oo waqtigiisii ayuu iska lumiyey, oo waqtigiisii ayuu wuxuu ku lumiyey gaalnimo iyo fisqi. marka waqtigu way kala sarsaraysaa, qofba siduu u lumiyo. qofbaa gaalnimo ku luminaya, qofbaa ku luminaya fisqi buu sameynaya, waxyaalaha macaasiyo dunuub aad iyo aad u fara badan buu sinaysanaya, khamri buu cabaya, dad buu iska leenaya, dhiig xaaraan u gelaya. waxaas oo dhan waa isku fisqi. qaarna way kasoo hooseeyaano maa laa yacni daa'ima ayay macnaha ku luminayaan. macnaha maa laa yacnigu waxa weeye waa daa'im, waa inuuna ku noqon waxyaalaha maa laa yacniga. hadeer tusaalahaan dadka iska sheekaystoo kale, qofka saaxiibkii la sheekaysanaya waxaa arkaysaa fi 5 saacaat wa 8 saacaat 8 saacadood ayuu la sheekaysanayaa. 8 saacadood ayuu la sheekaysanayaa saaxiibkii ama saaxiibadii buu la joogayaa. intaas oo saacadood waxa weeye waa waqti uu isagu iska ridayo. markaana waxa weeye mala yacniga laftirkeeda waxyaalaha faa'iido fara badan ee adduunyada ku lahayn, laakiin xoogaa yaro nashaado xoogaa aad doonaysid ciyaaro iska xoogaa ah aad doonaysid, waa inaad waqtigaaga ku lumin, waa inaad in yar siisaa. qof hadaa la sheekaysanaysa saaxiibkaaga waa inaad kula sheekaysataa shay wanaagsan, oo macnaha waa inaad in yar la sheekaysataa oo la kulantaa. laakiin la kulanka faraha badan ee dadku isku imanayaan, ee saaxiibadu isku imanayaan, ee saacadaha fara badan la qaadanayo, waxa weeye dee qof waqtigiisii bay dilaysaa. haddii doonto sheekadu shay mubaax ah oo aanan waxba yeelin qofka ha noqoto, haddii doonto shay iska caadiya qofka saaxiibka haddaa la sheekaystid waa iska caadi, laakiin iska caadigaas waa inaad waqtigaaga ku lumin. waxa mubaaxa iska caadiga waa in 8 saacadood iyo 7 saacadood toona ina ka qaadan. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inna as-sihhata wal firaaqa nicmataani min ni'ami Allahi 'azza wa jalla maqbuunun fiihima kathirun min an-nas. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri as-sihha wal firaaqa qofku inuu yahay oo waliba caafimaad uu haysto. haddii laakiinse firaaqo aad haysto laakiinse aad xanuunsanayso, dee markaas nicmadii ilaahay ma dhammaystirna. laakiin markaad caafimaad qabto firaaqana aad haysato, waxa weeye nicam min nicami Ilaah subxaanahu wa tacaala. waa nicmo ka mid ah nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay dee nicmadaas oo waliba ay dadka badanaaba ay ku kadsoon yihiin, oo dadka badanaaba ay garanayn. u fiirso xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam waa waxyi, waa xadiis, waa xikmad ku dheehan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sheegay, cid kale uma sheegin. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda iyo kownka iyo adduunka abuurtay ayaa u sheegay. markaana xadiiska wuxuu u sheegayaa in ay run tahay haddii amaanta u fiirsatid ummadda mujtamaca islaamiga ama adduunka, waqtigooda waxay ku dilaan macnaha wax aanan faa'iido u lahayn, waxaan faa'iido u lahayn adduunyo aakhiro ayay ku dilaan waqtigooda. markaana xadiiska inta ugu dambaysa wuxuu ku leeyahay dadka badanaaba way ka kodsoon yihiin oo macnaha kama faa'iideystaan nicmada sixada caafimaadka, kama faa'iideystaan iyo firaaqaas kama faa'iideystaan buu leeyahay. markaana waxa weeye waa xadiis, waxa weeye waa waxyi nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa inoo sheegay. marka dadku inay waqtiga ka faa'iideysaneen ayaa inoo sheegay. dadka badanaaba macnaha way jiraan kuwa fara badan oo ka faa'iideysanaya, laakiin dadka badanaaba ayaa laga shaqeynaya. marka wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa laba nicmo, qofku inuu fursad haysto una mashquul lahayn oo adduunyadu ay mashquulin, iyo in uu macnaha caafimaad uu leeyahay. labadaas nicmo macnaha culimadu dadka cilmiga barta, cilmiga maadiga ama ka diinta labadaba ha noqoto, meel kumay gaalin ilaa labada ma ahaanay inay nicmo tahay. waxa ku tusinaysaa haddii maanta firaaq dadkoo dhan firaaq ayna haysan, oo ayna fasaxa lahayn, oo ay macnaha waqtiyaal fasaxa ayna lahayn, ama qofku una firaaq helayn, ama
qofku uu caafimaad helin dee meelna lama gaadhin. Qofna wax muu barteen, qofna wax muu dhiseen, qofna wax muu horumariyeen, qofna wax kamuu sheekeeyeen, qofna ummadda wax cusub oo horumar muu soo saareen. laakiin labada nicme ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu ugu deeqay waxay dhashay ama ay keentay in qofkii uu waqtigiisii ka faa'iidaysto, in cilmiga la barto, in horumarka adduun laga shaqeeyo. maxaa yeelay haddii ay taas jiri lahayn dee waxa weeye waxba lama gaadhin. markaana waxa weeye waa nicmo ilaahay subxaanahu watacaala qofka siiyey. alkayisu man daana nafsahu. nabiga sal allahu calayhi wasalam wuxuu yihi qofka caqliga badan waa qofka naftiisa la xisaabiya, naftiisa qofka macnaha ilaaliya ee xisaabiya weeye. macnaha wuuna xisaabiyey wuuna ilaaliyey. qof xisaabiyey wuuna ilaaliyey, laakiinse lagama sheekeynayo qof naftiisa xisaabiyey keliya laakiin aan ilaalino oo isaga tegay. macnaha waxba uu fakray naftiisu xisaabiyey, wuxuu ogaaday inay naftiisu macnaha meel xun ku sugan tahay, hadhowtana wuu iska tegayo hawshiisii buu iska watay. kaa lagama sheekeynayo. laakiinse qofka naftiisii wuu xisaabiyey wuuna ilaaliyey. wa camila lima bacda almowt. wuxuu camal falay geeri inteena u iman ayuu camal falay. ilaalinta laftirkeedu waa sidaas. waxa weeye inaad camal falatid inteena geeri ku iman. salaadahaaga inaad xafidid, inaad qur-aankaaga xifdidid oo ilaalisid oo akhridid, inaad ilaahay subxaanahu watacaala ku xidhnaatid, inaad wanaaga iyo waxa wanaagsan aad ka shaqaysid, inaad xumaanta aad ka dheeraatid, inaad qofka u nasteexaysid. nasaaix addiinu nasiixa, diintu waa nasteexo. waxa weeye qofka kheerka si wanaagsan inaad ugu sheegtid, inaad wanaaga usoo bandhigtid. hadduu doono qofkaas xumaan ha kuu sameeyo, laakiin inaad wanaaga usoo bandhigtid. waxaa laga sheekeeyaa qiso ay ka sheekeeyaan dadka waxaasida. marka lasoo qaadanayo qisadaas ayaa lasoo qaataa, dadka waxaasida lagu soo qaataa. waxaa jiri jiray nin boqor ah. nin boqorkaa wuxuu lahaa laba shaqaale. mid ka mid ah boqorka ayuu nasteexo iyo wacdi ayuu usoo jeedin jiray maalin dheeli, ka kalena hawl kale u hayay. marka labadaas shaqaale waxay ahaayeen saaxiibo markay ahaayeen baa kii khayrka u sheegi jiray boqorka ayaa maalin dheeli wuxuu ku dhihi jiray hal eray oo keliya. wuxuu ku dhihi jiray aduu camalka wanaagsan ku mashquul, wixii xumaana ka xumaha wada ilaahay subxaanahu watacaala xumihiisa ayaa kaa kaafinaya, xumihiisa ku filan. xumaha laftirkiisa uu sameynayo ayaa ku filanoo macnaha isagu ku noqonaya. waa qof xabad ama seef iska soo ridaya laakiin isaga isku ridaya. xabad iyo seeftii wuu iska soo ridaya laakiin isaga isku ridaya, meel kale ma geenayo. wuxuu yidhi xumaha wax cidda kugu wata iyadoo ilaahay subxaanahu watacaala ku celinaya haddii aa waxa wanaagsan aduu ku mashquushid ee xumihiisa ka bax oo xumihiisa udaha ku mashquuline. qofkaana garanayna ilaahay subxaanahu watacaala baa xumihiisa kaa kaafinaya. baandheeli intaa yar buu ku dhihi jiray. boqorkii wuu yaabaa. adugu boqorkii ninkii wuu iska jeclaaday, saaxiibay noqdeen. dee qofku hadduu intaa dadka wacdiyo oo khayrka u sheego oo qof wanaag kuu sheegaya, adiga wanaagaaga jecel oo wanaagaaga kuu sheegaya, dee waxa weeye qofka qof wanaagsan ayaa u arkasa. mar kastaba aan waxba kaa dalbayn, wax adduuna aan kaa dalbayn, lacag iyo hanti iyo waxyaalahaas aan kaa dalbayn, shay kale aan kaa dalbayn, adiga aan ku dhibayn, laakiin wanaagaaga un kuu sheegaya. waxa weeye dee qofkaas waa jeclaanaysaa sababtoo ah dee xumaanba kuuma geysto, wanaag ayuu ku geystaa. markaana wuxuu sameeyey uu iskala saaxiibay. markuu iskala saaxiibay ayaa waxaa dhacay ninkii kale ee saaxiibkii ahaa ayaa ogaaday boqorkanu inuu ninkii kale jeclaaday. ninkii xaasidnima ku dhacday oo uu xaasiday. hadhow markuu xaasiday ayuu wuxuu is yiri bal sidaa isugu dirtid samee ka shaqee buu yiri, sidaa isugu dirtid ka shaqee. ninkii saaxiibkii xaasidayay ayaa wuu yimi. wuxuu ku yiri boqorkii buu u yimi. boqorkii ayaa wuxuu ku yiri ninkan wuu kacayaa oo wuxuu dhahaa boqorku afka uraya, dadka macnaha cudurka afka uraya dadka qaba ayuu ka mid yahay ee ha u dhowaan. macnaha saas ugu dhahaa, saas ugu sheekeeya. hadhow boqorkii baa xanaaqay. markuu xanaaqay baa wuxuu yiri bal waayahay waa eegi doonaa buu ku yiri. markuu ku yiri waa eegi doonaa ayaa ninkii baa wuxuu sameeyey kii saaxiibka uu beenta ka samaysanayay uu xaasidayay ayuu u yeedha boqorka wacdiyi jiray. markuu u yeedhay ayaa wuxuu ku yiri inamari maanta qadan ku hayaa. gurigii buu geeyey, wuu soo qadaysiiyey, laakiin wuxuu siiyey qado ay ka badan tahay basashu ay ka buuxdo ayuu soo siiyey. hadhow qadadii wuu soo qadeeyey wuu yimi.
markaana ninkanna wuxuu yiri kan xaasida waxa isku diraya boqorka marka hore wuxuu ku soo yiri ninkaasu hadduu kula soo fadhiisto oo afka waqa qabsado macnaha wuxuu diidayaa urtaada oo waad urasaayo boqorow afka ku uraye macnaha wuxuu diidayaa in urtaada uu macnaha uu dareemo ama u soo urto ayuu diidayaa marka taas haddii ay aragtid isagoo afka qabsanaya waa runtii buu yiri hadhow baa uu tagay markuu la soo qadaysiiyey qado basasho ka badan tahay ayaa wuxuu sameeyey boqorkii buu yimi kii kalena wuu yimi markaa ninkii bay doonayaan inay baadhaan inay runtii tahay iyo inka kale kii beenta ka samaysanayeen xaasidayna dhinacan ayuu macnaha fadhiyaa markuu fadhiyo kii boqorkaana halkan u soo fadhiistay wuu u yeedhay uu la soo fadhiistay xoogaa ninkiiba afka sidaa yiri afkiisii buu qariyey hadhow baa markuu qariyey oo baa boqorkii baa yiri wallaahi waa runta run buu sheegayaa buu yiri wuxuu sameeyey boqorkii waraaq buu qoray ninkiiba wuxuu ku yiri hadiyada dadka halkaa jooga oo la tag ayuu ku yiri hadiyada qaado dadka halkaa jooga oo la tag ninkii macnaha wacdiyi jiray ee la xaasidayay ee boqorka lagu diray ayuu wuxuu siiyey waraaq wuxuu yiri waa hadiyade dadka halkaa jooga oo la tag hadiyada ha ku siiyaan oo ha furin ilaa aad iyaga u tagtid mahane waayahay albaabka ka soo baxay albaabkii boqorka markuu saa uga soo baxay oo isiri meeshii aad ayaa waxaa ka hor yimi kii xaasidkaaye boqorka ku diray ayaa ka hor yimi hadhow baa wuxuu yiri nin xagee waa kan soo boqorka ka yimi suu yiri maxaa boqorka oga timi xaggiisa wuxuu yiri nin waraaqdan hadiyadan ayuu isoo siiyey kiibaa kusoo booday alla anigaasi kiibaa adigu sidii u bariyay buu qaatay markuu qaatay hadiyadii ayuu fakax intuu la yiri ayuu wuxuu la aaday kuwii macnaha ciidamadii ayuu la aaday way qaadeen hadiyadii buu yiri hadiyad la soo dhiibay boqorka hadiyadan isoo siiyey hadiyadii iyo waraaqdii bay ka qaadeen waraaqdii ayay akhriyeen waraaqdii markay akhriyeen mise waxaa ku qoran ninkan warqada sida ee inii imanaya kurka laga jaro madaxa laga jaro hadhow baa waxay ku dhaheen waraaqdaas intaas ku qoran adna madaxa laga saraya tiiniku miyuuna intuu boodin oo argagixin oo yiri ninkaas loo waday anigu ma ahayn weydiiya miyaa laga asmacaya waa waraaq boqor soo qoray oo lama celiyo miyaa laga qorayaa waxaas inta halkan la soo jiifiyay ba madaxa laga jaray gibigiisaba ninkii halkaas uu ku waayay madaxiisii iyo noloshiisii ninkii wacdiga badnaa ee lagu diray boqorka ayaa meeshiisii buu iska yimi shaqadiisii kursigiisa ayuu iska soo fadhiistay boqorkii baa ninkii arkay wuu la yaabay wuxuu yiri kaale maxaa halka soo fadhiisay waraaqdii meeyay buu yiri waraaqdii ninkii saaxiibkii baa ugu hor yimiyo isaga intuu igu ooyay buu yiri isiyo waan siiyo markaana wuu qaatay siruniyo ninkaas wuxuu ii sheegay in ku tiri boqorku uu af qarmoon yahay siru waa beentii anugu waxba kuma oran buu yiri saaxiib sababta waa maalinta halka markaa fadhiday aad afka la qabsanaysa maxay saaxiib yiri isaga intuu qaday isoo siiyay ayaa wuxuu isoo siiyay qado ay ku badan tahay basasho marka anigu waxaan diidayay basasho inay adiga ku urto taas ayaan kaga ilaalinay hadhow boqorkii wuxuu sagartay in kii xaasid ahaa oo uu ku diriyay ayuu sagartay hadhow wuxuu yiri orod run baad sheegtay hadalkaagii run baad sheegtay hadalka ay ugu dhihi jirtay oo ahaa wanaaga ku mashquul xumaantana ka kugu sameeyay isaga u daa isaga ay dhibasayo waxyeelaysayo ka daba imanaysaay xumaantaas ka kaafiyay isaga ugu daa hadalka ay ugu dhihi jirtay run baa ii sheegtay oo wanaagaagii baa ku badbaadiyay xumaanta kii xaasidnimada oo macnaha uu ka dirayna xumaantu ku waday ilaahay baa ka qabtay oo waka madaxa laga soo jaray xaasidnimo ayaa madaxa ka jartay qof buu xaasiday bas amar weyn oo macnaha in qofkan la dilo ayuu doonayay dilitaankii isagu ku noqday isaga ayuu ku noqday marka xaasidnimadu marba nooc ay tahay qofku uu sameeyo isaga ku noqonaysaa bal waxa doontii aadna ka dhigo xaasidnimada doontii ka dhigo hadaa doontid ina laba qof oo walaalaha isku jirtid ka dhigo laba qof oo isku heela ina isku jirtid ka dhigo laba qof oo isku xaas oo isqaba oo xaasiyo isku ah hadii aad doonaysid inaad ka dhigtid xaasidnimada ka dhigo laba qof oo macnaha hadhowna istilay aad doonayso mishikaagu inuu yahay labada qof inay istilaan oo nafta iska saaraan ka dhigo adiguna ayay kugu soo laabanaysaa ama adiga qof dilay
ku dilayaa ama meelahaasaa gelaysaa amar adugu intaas una ayay noqonaysaa qofku xaysnimada ogolo ayaa lagu abaalmariyaa marka waxayna soo jiitay hadalkaa ah alkayisu man daana nafsahu wacalima bima bacda almowt wacalima lima bacda almowt qofkii u camal fala macnaha bacda almowt macnaha qofkan waxa weeye waa camal falkaa uu sameeyey ayaa lagu abaalmarinaya walcaajisu man atbaca nafsahu hawaaha qofkii naftiisa raaciya weeye hawadiisa kaasaa caajis la dhahaa watamanaa cala allahi casa wajalla alamaani waxa weeye qofka camal sameyn maayo meeshiisu iska fadhiya salaad ma tukanayo qur-aan ma akhrisanayo wanaag ma sameynayo wax ficila uu la imanayo ma jirto hadhowtana wuxuu doonayaa inuu magaranaysaa wax iska helo ama amaani wax la dhaho alamaani macnaha hididiilo yaroo bilaa camal ah hididiilo bilaa camal ah qofku inuu iska hayo camal sameyn maayo haddana waxbuu iskaga fikirayaa markaana casharkeeni qaybta koowaad insha allahu tacaala intaas ayaynu kusoo koobanaa waxaad noqotaa qof ka faa'iidaysta waqtigiisa waxaad noqotaa qof maalintii cilmi barasho iyo inuu wax akhristo alqiraa'a inuu ka faa'iidaysto insha allahu tacaala inuu wax la akhristana mawduuc iyo baab gaara ayaynu u habeenanaa insha allahu tacaala maalinteeda waynu ka hadlanaa maxaa yeelay qiraa'adu iyo wax akhristu waa shayga ugu weyn ee cilmiga lagu kasbado oo qofka hadduu wax akhristo noloshiisa meel buu gaarayaa ama ha yaraato meeshaas ama ha weynaato mustaqbalkiisu wuxuu noqonayaa mustaqbal aad iyo aad u nuuraya markaa qofku qiraa'adiisu inta ay tahay ayay mustaqbalkiisu tahay mustaqbalkiisu ayuu yahay qiraa'adiisu hadday fara badan tahay mustaqbalkiisu waxa weeye waa besti waa meelaha ugu dambeysa waa raayic jiddan ama qiraa'adiisu hadday kasii hooseyso darajadiisa ayay jeelanaysaa marka waxaad noqotaa mid qiraa'ada insha allahu tacaala meesha ugu weyn ka gaadhay sida aad u noqoto mid mustaqbalkiisu aada u nuurayo dhinac kastaba uu ka nuurayo marka insha allahu tacaala iyadana qiraa'ada iyo in wax la akhristo mawduuc gaara ayaynu u habeenaynaa maalinteedana suganaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu